Asalaamu calaykum waraxmatullah. Caalamka waxaa laga helaa shirkado leh awood iyo hanti aanan lahayn dowladaha qaar. Shirkadahaas awoodooda keliya kuma eko ganacsi, laakiin waxay saameyn ku yeeshaan go'aamo dowladeed siyaasadeed. Sidoo kale shirkadahan waxay awood u leeyihiin inay iibsadaan waddan dhammaantiisa. Sidaa darteed maanta waxaan mowduuceen kusoo qaadan doonaa 10 shirkadood ugu awoodda badan ugu hantida badan caalamka oo dhan. General Electric waa shirkad Mareykan ah oo ku shaqo leh korontada iyo tiknoolajiyada. Waxaa la aasaasay 1892 waxayna qaas u tahay suuqyada korontada iyo tiknoolajiyada. Waxay soo saartaa tamar koronto oo xoog badan. Waxaa ka shaqeysa shaqaale gaaraysa 330,000 oo qof. Sanadkii la soo dhaafay waxay dakhli ahaan u heshay 122 bilyan oo dollar. Lacagtaas waxay ka badan tahay wax soo saarka dalka Kuwait ee sanadlaha ah. McDonald waa shirkadda ugu weyn ee caalamka soo saarta cunada fudfudud. Waxayna leedahay shirkadda in ka badan 36,000 oo xarumood oo ku kala yaala daafaha dunida. Waxay ka shaqeysaa in ka badan 100 waddan. Marka laga reebo Afrika iyo 2 waddan oo ay ku kala yaala qaaradda Amerika, Cuba iyo Bolivia. Cuba waa laga xarimay halka Bolivia ay ku fashilantay shirkadda inay ka shaqeyso. Waxaa ka shaqeysa shirkaddan 440,000 oo shaqaalo. Sanadkii tagay waxay soo saartay 25 bilyan oo dollar. Disney waa shirkad leh xarumo loo soo dalxiis tago. Waxaana sanadkii dalxiis u tagta dad tiradooda gaaraysa 132 milyan. Tiradaas oo ka badan tirada dadka ku nool wadamada kale ah Colombia, Ecuador, Chile, Peru iyo Venezuela dhammaantood. Disney waxay sidoo kale ka shaqeysaa shirkadaha Hollywoodka filimada sameeya. Shirkaddan ayaa waxay sanadkii filimada ka heshaa 200 milyan oo dollar. Shirkadda waxay ka shaqeysaa Aasiya, Yurub iyo qaaradda Amerika. Waxaa ka shaqeysa Disney 185,000 oo shaqaalo. Shirkadda waxay sanadkii la soo dhaafay dakhli ahaan u heshay 58 bilyan oo dollar. IBM waa shirkad inteena badan aan wada naqaano, waana shirkadda ku caan baxday tiknoolajiyada iyo sameynta kombiyuutarada. Waana midda ugu weyn ee soo saarta kombiyuutarada caalamka oo dhan. Waxayna caan ku tahay labada barnaamij oo kala ah hardware iyo software. Shirkaddan waxay sanadkii soo ixtiraacdaa in ka badan 2,000 oo barnaamijyo cusub oo ku saabsan tiknoolajiyada iyo kombiyuutarka. Waana shirkadda ugu horreysay caalamka soo saarta kombiyuutarada. 5 qof oo ka shaqeysa shirkadda ayaa ku wada guuleystay abaalmarinta Nobelka, waxaana lagu aasaasay New York 104 sano ka hor. Waxaa ka shaqeysa shirkaddan 370,000 oo shaqaalo. Waxayna sanadkii la soo dhaafay dakhli ahaan u heshay 80 bilyan oo dollar. Toyota waa shirkad Jabaanees ah oo sameysa gawaarida. Waana shirkadda ugu weyn marka loo yimaado sameynta gawaarida. Waxayna ku taallaa isla magaalo magaceeda xambaarsan ee lagu magacaabo Toyota. Waxaa la aasaasay Toyota sanadka markuu ahaa 1937. Waxaa ka shaqeysa Toyota 330,000 oo shaqaalo oo ku kala nool daafaha dunida. Sanadkii hadda la soo dhaafay waxay dakhli ahaan u heshay 23 bilyan oo dollar. Lacagtaas waxay ka badan tahay wax soo saarka waddanka Chile ee sanadlaha ah. Facebook waa shirkad ka howlgasha social media caan ka ah dunida oo dhan. Waxaa Facebook isticmaasha 1 bilyan iyo 600 oo milyan oo qof. Haddii la dhaho waxaan barbar dhigaynaa isticmaalayaasha Facebook waddan, waxaan dhigi karnaa dhammaan dadka ku nool waddanka Shiinaha oo ah waddanka ugu dadka badan caalamka. Waxaa aasaasay Facebook Mark Zuckerberg, wuxuuna ka mid yahay bilyaneerada loo tixgeliyo dadka ugu lacagta badan caalamka. Sidoo kale Facebook waxay leedahay shirkado kale oo ay iibsatay oo ka shaqeeya social media sida Instagram iyo WhatsApp. Waxaa Facebook daqiiqadii la soo geliyaa in ka badan 350 milyan oo sawirro cusub. Milkiilaha Facebook wuxuu ka mid yahay dadka ugu saameynta badan caalamka. Facebook waxaa ka shaqeysa 120,000 oo shaqaale. Waxay sanadkii la soo dhaafay suuqa ka heshay 18 bilyan oo dollar. Coca-Cola waa shirkadda soo saarta cabitaanada ugu caansan caalamka. Waxay kaloo soo saartaa cabitaano kale oo magacyo kala xambaarsan sida Fanta, Sprite iyo kuwo kale. Waxay ka shaqeysaa dhammaan wadamada caalamka marka laga reebo 2 waddan oo kala ah Kuuriyada Waqooyi iyo Cuba. Waxaa maalintii cabta Coca-Cola in ka badan 55 milyan oo qof. Dhaqaalaha shirkadda Coca-Cola waxa uu ka badan yahay wax soo saarka sanadlaha ee waddanka Costa Rica. Waxaa ka shaqeysa Coca-Cola 123,000 oo shaqaale. Waxay suuqa ka heshay sanadkii la soo dhaafay 84 bilyan oo dollar. Microsoft waxaa lagu tiriyaa aasaasaha shirkadda Bill Gates ninka ugu hantida badan caalamka. Hanti lagu qiyaasay 77 bilyan oo dollar. Haddii aad maalinkii ka isticmaasho 1 milyan oo dollar hantida Bill Gates, waxay kugu qaadanaysaa inaad hantidiisa ku dhammayso 300 sano. Microsoft waa shirkadda soo saarta nidaamka shaqada kombiyuutarka noocyada loo yaqaano Windowska, waana midda dadka ugu badan ay isticmaalaan. Sidoo kale waxay soo saartaa nidaamyo ku shaqeeya taleefannada. Waxaa loo diiwaangeliyey Microsoft shirkadda shanaad ee wax ugu soo ixtiraacidda badan caalamka. Waxaa ka shaqeysa Microsoft 118,000 oo shaqaale.
waxayna sanadkii lasoo dhaafay suuqa ka heshay 86 bilyan oo dollar. Google waa shirkadda ka howlgasha internetka, waana shirkadda ugu weyn caalamka markii laga hadlayo internet. Google waxay ka shaqeysaa soo gudbinta macluumaadka iyo ka raadinta warbixinada, waxayna soo gudbisaa macluumaad aan dhammaad lahayn. Google waxaa wax ka baarta daqiiqadii 2 milyan oo qof. Sidoo kale waxay ka shaqeysaa noocyada kala duwan ee tiknoolajiyada sida soo saaridda taleefanada tabletka. Google waa shirkadda iska leh barta YouTube oo ah shabakada macluumaadka soo gudbisa muuqaalada. Waxaa ka shaqeysa Google 350,000 oo shaqaalo, waxayna sanadkii lasoo dhaafay suuqa ka heshay 68 bilyan oo dollar. Apple waxay soo bilaabatay sheekada tufaaxa 1976, waana shirkadda soo saarta taleefanada ugu qaalisan caalamka sida iPhone, iPad. Waxay sidoo kale soo saartaa kombiyuutarada ugu tayada wanaagsan ee caalamka ee loo yaqaano Mac. Apple waxay awood u leedahay inay iibsato Facebook, Starbucks. Apple waxay dhowr jeer safaro u aaday kowkabka loo yaqaano Mariikha. Waxay sidoo kale leedahay dhismaha caalamka ugu dheer. Waxay kaloo awood u leedahay inay iibsato dowladda Beirut dhammaanteed, sababtoo ah lacagta Apple bangiga ugu jirta ayaa ka badan dowladda Beirut waxay soo saarto sanadkii. Sidoo kale Apple waxay hadda dhisanaysaa dhismo ku kacay 5 bilyan oo dollar, kaasoo ka samaysan muraayado, kaasoo dhismihiis hadda ka socdo gobolka California. Maleynaa inaad wax badan ka faa'iideen muuqaalkan maanta soo gudbinay. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaalo, like, share, subscribe lana soco muuqaaladeenii ugu dambeeyay.